السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحنا فاتوش فملي سودا وهذا دمانتين وأبديت كين مال لها I hope إن في عندي مالنتين وقروح بدن تهاي ما شاء الله أنا كرمانتين الحمد لله وقروح بدن تهاي وحرام ما أنت ساكرك سؤالتين استيد بحنا يلا بقي طبنكم واو يوسينا يا bal state kaas baan inkaga sheekeynaya iyo waxa uu ku bixinayo waa lacagaha maalmahan ay fatuush soo tabiso oo kamid ah state-yada inay wali bixinayaan oo isticmaalayaan qofba nooc buu isticmaalaya third stimulus check 1.9 trillion-kii 1400 ay ku jirta lacagahooda laga siiyay marka state-kan 12 waa wax kale sidoo kale update-keeni coronavirus ayaan idin sheegi doonaa iyo waxyaabaha ka soo cusboonaaday marka soo dhawaada haddii ilaahay inay idmo subscribe saara gambaleelka furta haddaa cusubtay haroodaad hore noola joogta sidoo kale videoga markaan soo geliyo like-ta ku badiyano like-ta video ilaa like-ta uu ka yaabo like-ta ku badiya maasha allah up dhandhandhamaya up insha allah السلام عليكم كسو دوادا اونلاين ستور كينو كاس او اد كهلي كرتid alaabo qurux badan hadii aan la daahiyo qurux badan kalarkii gurigaaga aad ku xiri lahayd iyo sidoo kale waxaan ku soo kordhinay store-keena alaabaha gogasha sariirta kuwa miisaska qadada hadii aad danaynayso fadlan nagala soo xiriir shaashada numberka ku qoran ama snapkeena waxaan sidoo kale sameynaa free delivery twin serieskeena waaxigeeda 50 state-kana shipping ayaan u sameynaa soo dhawaada Fatush Family Online Store soo haddaba saa ogsoon tihiin Monday berri ah waxba kama harin haddii ilaahay nafta nagu daayo waxa bilaabanaysa travel bankaas oo ku bilaabanaya South Africa iyo wadamo kale oo Afrikaan ah oo tiro badan oo Malawi ay ku jirto Zimbabwe ay ku jirto toddoba bala South Africa waa South Africa meeshuu ka dilaacay waaye xanuunkii ayaa dhakhtar Fooji ayaa ka hadlay waa ninka u qaabilsan United States xagga disease-ka iyo cudurrada iyo coronavirus-ka dhanba White House-ka u xil saaran waa wuxuu yiri de waqti bay siinaysaa wide wadamada loo xir travel bank loogu soo rogay oo dad kama iman kara loo yiri flight kama iman karaan loo yiri waxa waa inay waqti haystaan si ay isku diyaarino yiri xanuunkan coronavirus wuxuu kaga duwan yahay in uu more serious yahay yani qofku ku dhaco uu yani ka daran yahay coronahii hadda la aqriyay la yaqaanay kani waa Omicron variant Omicron waa magac kale aanan aqoonin markuu wuxuu yiri waqti bay nasiinaysaa in aan isku sii diyaar garowno United States wali lagama detect garan state wadamo kale Germany iyo laga sheegay in flightyo wadamadaas ka imaada ay tageen United States kaliya waxa tilaabadan qaaday waa all Europe dhan waxay baangareysay state-yada wadamadaas goboladaas wadamadaas gobol macana wadamadaas oo South Africa ugu jirto Malawi ku jirto Zimbabwe ku jirto marka all ayakana wadamada kale dhan baa sameeyay oo dhahin flight inka nagama iman karo marka hadii de wadamo kale laga helana waxa waaye ayakana way ku sii badanaysaa oo sii soconaysaa laakiin wali United States way istiyaarinayaan oo state badan hadda New York ka mid tahay oo state weyn waa New York ayaa state of emergency ku dhawaaqeen lacala habad laga helayaan America dhan shutdown baa ka dhici doonta because waxa la dhahay waa in la baaraa in vaccine-kan ay la shaqeynayso oo lagu daaweyn karo oo qaadan karo sidoo kale maxaa la dhihi jiray kambaniyadii soo saaray vaccine-ka ayaa waxay dhaheen within 100 days ka soo socda waxa soo bixi doonta cudurkan Omicron loo dhaho Omicron variant in loo helo daawo oo talaalo kale ay soo saari doonaan because asaga study gareynaya hadii talaalkan waxba ka qaban karin mean already talaal 100 days waa 3 bilood gudahood waa fahmaysaa 3 bilood iyo waa 10 bari marka 3 bilood iska dhig waxay dhaheen 100 days ka soo socdo daawo inay diyaar u ahaato fashion-kan lagu waxayna waa kii oo isbedelayo haba magacyo kale la imaanayo asaga baa isbedelayo ma fahamtay kii China ka imaaday ayaa hadda isbeddelaya wali haba magac la baxay sidoo kale waxa la yiri stock market-ka oo crash gareeyay suuqa hoos u dhacay because they waa la panic gareeyay ma fahamtay panic gandartiis asagii oilkiiba
gaaskiiba hoos bay u dhaceen oo dee oilku dadka inay dhaco way fiicantaa laakiin suuqa inuu hoos u dhaco ma fiican because dad baa lacaga ugu jiraan waa suuqii dhan marka dadkii waxaa ku dhacaysa qofkii gadanaya ma aha laakiin qofkii horey ugu haystay waxay ku tahay khasaaro marka waxyaabo badan waa la baani garaynaa iyadoo weli United States laga helin ayay haddana cabsanayaan because dadka isku dhex traafal garaynaa marka taas waa loo cabsanayaa so state wada gobolkii bixinaya 12,000 gobolkaas wuxuu siinayaa child care providers ka waa dadka laysanka haysta oo laysankaas ka haystay wixii March ku horeeyay March 12 wixii ka horeeyay 2021 qofkii ahaa child care provider ka ayay waxay siinayaan almost 12,500 bahalki ilaa 12,000 yani 500 ay uga bilaabayaan ilaa ay siiyaan 12,500 loo soo diraa dan ilaa 12,000 baa grant waaye grantigaasna waxay ka imaatay lacagtii ay ka heleen waxay ka sameynayaan stimulus check hore oo taa stimulus check state ka saddex ku nooshaan waxaa la Alabama child care providers waxay waa wax aad u muhiimsan kuwa badan baa shaqadii waagii hore xiray kuwa badan baa soo noqday oo shaqooyinka 90% hadda waxay is working way shaqeynayaan marka child care providers waxay waa wax muhiim ah wadanka shaqadiisa muhiim ah because dadka markay helaan qof ilmaha u haaya ayay kuna shaqo tageen soo Alabama hadda ku nooshahay Soomaali tahay child care provider aad tahay waa apply gareysan kartaa application baa la buuxinaya application waxay bilaabanaysaa Monday 29 Monday soo socota dambe Monday waa goorme Monday da soo socota maxaan kale waa Monday bari maanta waa 29 Monday ay bilaabanaysaa application kaasoo grantiga apply gareysanaysa da child care provider tahay oo child care provider aad tahay oo dadka child care ka shaqeeya waay ama child care lahow ama child care ka shaqeeya soo qofkii waxaa la siinayaa 1,500 12,000 waa lacagta laakiin waa loo haafinaya marka 1,500 full time qofkii part time meeshiisa ee furanta ama part time aada shaqadaasna waxaa la siinayaa halfkii ma fahmaysaa soo Alabama hadda degantay child care provider taade ku yaacada xagga iga dawsi koos dadkayga state kasta iga daawadaan marka benefit kasta lacag kasta arka waa inaan u soo sheega wada gobolada kale haday sameeyaan ayadana waa idin soo sheegay hadii ilaahayno laakiin wali waxaa la qorsheynayaa lacagihii stimulus check uga imaada qof kasta nooc uu isticmaali lahaa iyo wuxuu siin lahaa marka hadda Alabama waxay aad dhinaca child care ka bal waa arki doonaa waxyaabaha kale soo baxay state kasta ka soo bixi kartaa yani jannad child care ayadoo siyaabo kala duwan marka insha Allah kala soco Fatush Family aad bad u maasantiisa markasta igu xirantiin u daawatiin wali stimulus check package ki Monday tomorrow ayuu bilaabanayaa waana isla taraagreynaa ilaa aan ka soo dhigno wixii soo socda insha Allah iyo wixii lagu daray iyo wixii laga jaray iyo wixii la soo baas kareysma diilaadna aad bad u maasantihiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh